إلهي بقى مهله إلهي بان وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون وحن كتحسين إن أنت ولا عليها نهاية فتهاد كل متي وحن ديارنا إن أجرمنا أنت نول جرمتك إنه كباهن وحن هل كان السجون من أنه فلون إن باقي مدحونها دولة بنتلان سعيد عبد الله الدني وحلي وباقي bulshada iyo dawladda Puntland dadkeedu ma inay u kacaan sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka reer beledweyne waxaan halkan fariin uga direynaa magaalo walba gobol walba iyo degmo walba gaar ahaan Puntland xuduudaheeda oo dhan iyo meel walba dhalinyarada samafalayaasha dhalinyarada isxaaqamayaasha qof walba inuu u istaago badbaadinta dadkeena walaalaheena ee ku dhibaataysan beledweyne waxaan fariin u direynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan Soomaaliya meel walba ay joogo maanta inay u kacaan walaalaheena beledweyne sidii loo badbaadin lahaa waxaan fariin u direynaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga inay dhamaantood ka qayb qaataan gurmadka badbaadinta dadka reer beledweyne walaalayaal runta markii laga hadlo qof walba oo beledweyne jooga maanta waa qof waxa weeyaan mucsura dharkiisii iyo raashinkiisii iyo gurigiisii iyo lacagtiisii iyo wax alla wuxuu haystay biyo kala wareegay maanta qofku biyo cabo nadiif ma haysto cunto ma haysto cabitaan ma haysto dhar ma haysto dhaxanta wuxuu isaga celiyo ma haysto kulaylka wuxuu isaga celiyo ma haysto qabowga wuxuu isaga celiyo ma haysto wax nolol oo haysta lama arko ilaahina quraanka wuxuu ku yiri waman ahyaaha fakaannama ahya an-nas jamiican qofkii qof badbaadiya wuxuu la mid yahay dadka oo dhan oo badbaadiyo miyaynaan awoodin inaynu walaalaheen badbaadino miyaynaan awoodin inaynu caruurteena beledweyne ku dhibaataysan badbaadino miyaynaan awoodin hooyooyinkeena beledweyne ku dhibaataysan inaynu badbaadino waxay u baahan yihiin maanta meel ay dab ku shitaan ma haystaan oo dhulkii oo dhan biyo haysta waxay u baahan yihiin dhar ay dhaxanta isaga celiyaan waxay u baahan yihiin wax markii loo geeyaba baahida ka tira kara iyagoo aan la karin timir bay u baahan yihiin buskud bay u baahan yihiin kalluun bay u baahan yihiin caano booray u baahan yihiin dhar bay u baahan yihiin marakanaac u baahan yihiin xasiigiyay u baahan yihiin bustayaal bay u baahan yihiin bacay u baahan yihiin intaa waxaan faraynaa waxaan isku qaybinay qayb guri u istaagaysa garowe guri walba waa la imaanayaa qof walba wixii aad awoodid raashin iyo haddii alla kuu roon yahay dhar wax alla wixii aad gurigaaga ka awoodid ka soo saar warshadaha biyaha sifeeya ee ku dhaqan magaalada garowe iyo guud ahaan gayaga Puntland waxaan leenahay dadka maanta walaalaheen reer beledweyne waxay ugu baahi badan yihiin biyo nadiif ah ay cabaan nin walba oo ilaahay wax siiyay waxaan leenahay wixii aad bixisid maanta waa waxaad ku badbaadisid walaalka waxa weeye qof walba gurigaaga iyo goobtaada lagugu imaanaya hameen iyo maalin istaayidmo marka waxaan leenahay qof walba meesha aad joogtid fariintan ka xambaar qof walba Soomaaliya oo adduunka meel alla meesha ka joogtid mas'uuliyad iska saar inaynu u gurmano walaalaheena maanta beledweyne ku dhimanaya ee ku dhibaataysan waa mahadsantihiin assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tay beledweyne kiiskii ugu dambeeyay baan ka tacsiinaynaa dad iyagu intay rabeen inay baxsadaan oo badda ka baxsadaan geeda fuula isla markaana geedkii intuu la soo dhacay biyuhu ay la tageen waxaan halkan fariin ugu dirayaa ummadda reer Puntland ummadda Soomaaliyeed qof kasto damiir leh Soomaalidu maanta dhibta taagan tahay waa maalinta ay soo baxaan maanta waa maalinteennii dadka reer beledweyne aynu caawino dadka naxariista badan ee reer Puntland ee ka soo qayb qaatay dhibaatooyinkii dhacay oo dhan oo kamid ahaa qaraxii Soobe oo kamid ahaa fatahaadii sidan oo kale uga dhacday beledweyne oo kamid ahaa Puntland wixii ka dhacay oo ahaa abaarihii dadkii ka qayb qaatay intoodii badnaa halkan ay taagan yihiin waxaan leeyahay fariintan diray waxay tahay maanta reer beledweyne waxay u baahan yihiin hiil waxay u baahan yihiin hiil Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hiil garab istaag iyo caawinaad hadal uma baahna qof kasto Soomaaliyeed qof kasto reer Puntland waxaan leeyahay tuulo ilaa gobol ilaa degmo waxaan leeyahay la soo baxo ha laga qayb qaato dadka reer beledweyne waxa weeye waxay marayaan biyihii hooyooyinkaas kamid ah aabayaal waxa kamid ah iyagu badbaado soo doonto isir wabigi dhaaf oo marka wabigi uu la tagay dad waxa jira iyagu wax caawinaya oo wabigi la tagay waxaan rajaynaynaa inaan baaqeena laga soo wada jawaabo buunsa waxay noqon doontaa meesha aynu ku kulmi doono qof kasta waxaan ka codsanayaa numberka halka ku yaala inuu soo waco nagala qayb qaato ololahan waa olole aad u weyn ma aha olole 10 qof iyo 20 qof toon ay ka bixi karaan in dadka reer beledweyne mar labaad mar koowaad iyo mar saddexaad hiil loo muujiyo baan ka codsanayaa ka qayb qaata walaalayaal ka qayb qaata oo caawiya walaalahan weeyaan waa dadkeenii waa hooyooyin waa aabayaal waa ciyaalka yaryar ay u jeedeen meesha la saaray waxa way wixii tigay ka ohisiiyay waxa weeyaan ilmihii yaryar oo la saaray kor isla markaana halka uu marayo korontadii oo halis ugu jiro bahallaa jira cudurraa jira ha la soo baxo ha laga qayb qaato gurmadkan ha noqdo gurmad weyn oo guud ahaan Soomaaliya ka dilaaca waxa way reer beledweyne maanta kaliya wadada u furan waa reer Puntland waa wadada laamiga wadada inoo furan waxa weeyaan aan soo baxno hil aan muujino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan
halkan u taagannahay sida uu sheegay maamulaha ama guddoomiyaha bunsa inaan u gurmano walaalaha iyaga beledweyne musiibadu ku dhacday anigu waxaan leeyahay reer beledweyne waxay u baahan yihiin hadal ma aha waxay u baahan yihiin hoo marka meel hoo u baahan hadal waxba kama taro saacaddan oo ay tahay xilli duhur ah waxaan runtii anigu dhammaantayo si gaar ah anigoo Ibraahim Wadani ah aan diyaar ugu ahay in aan magaalada Garowe xaafadaheeda aan xaafad walbaahi ka soo jawaabo iyadoo aan dareensiin doono dhammaan ummadda ku dhaqan magaalada Garowe maadaama aan hadda Garowe ku sugannahay in caruurta guryahooda u jooga ee nabadda qaba caruurta caafimaadka qaba ee guryahooda u jooga caruurta wax baranaya ee guryahooda u jooga caruurta ladan ee aan cabsida dareemeyn ee guryahooda u jooga si la mid ah in ay caruur kale ay ku dhibaataysan yihiin magaalada beledweyne in ay saaran yihiin guryo korkooda in ay saaran yihiin geed korkiisa in ay runtii u dhow yihiin oo ay halis ugu jiraan in yaxaasku masaska musiibada bahalada cudurrada in ay runtii ay halis ugu jiraan oo ay u dhow yihiin in dadku ay biyo qarqanayaan oo ay biyo dhaxmarayaan oo wada caadi ah aysan haysan in dadku caafimaadkooda xilliyada soo socda laga dayrin doono in dad badan la waayay oo daadadkaas ama biyahaasi uu fatahaadda webiga ku sameeyay lagu waayay in marxalad adag ay jirto in ay tahay marka sida looga bartay shacabka Garowe iyo shacabka Puntlandba in ay kacaan oo ay u kacaan dadkaas walaalahooda oo ay musiibadu ku dhacday sida mar walbaahiba talaabo ahaan aanu u qaadi jirnay maadaama ummad Soomaaliyeed la yahay maadaama aynu nahay dad walaalo ah maadaama aynu nahay dad isku dhiig ah maadaama aynu nahay dad wada jira maadaama aynu nahay dad islaam ah maadaama aynu nahay dad Soomaaliyeed maadaama aynu nahay dad hal af ku wada hadla in aysan kala ququfin ama aysan wax kale oo dhibaato aysan naga dhaxaynin oo ay tahay sawirka aad aragtay ee hooyada Soomaaliyeed ay ilmaheeda bariiska ugu raadinayso iyadoo biyo maraysa oo ay xaaska halis ugu jirto oo ay maska halis ugu jirto oo ay inay ku qarqato ama biyahaas ay dafaan halis ugu jirto inay haddana u soo baxday caanahaas inay suuqa ku gado suuqay ku gadi lahayd meesha ay ku gadi lahayd dadkii ka gadan lahaa kulli daad baa wada qaaday biyaha wada qaaday waa wada dhiban yihiin waxaan rabaa oo aan wada rabnaa oo dhammaantayo halkaan aan u taagannahay in aysan hadal naga noqonin oo aynu ficil u gudubno waxaan diyaar u nahay xilligan duhurka ah inaynu dhaqaaqno waxaynu isku qaybinay koox walbaahina meel bay ku aadi doontaa guddoomiyaha ayaana taasi faahfaahinteeda bixin doona waxaan rabaa dadka lacagaha haysta ee maanta bakhaarada ama meheradaha waaweyn fadhiya oo aanu u tagi doonno waxaan ka codsanaynaa lacagaha $20 oo $15 ama $30 oo ay cunada iyo shaaha ku cabayaan oo xalaasho u ah in ay dhanka kale u diraan ma oranayo inay sidaas sameeyaan ma xaq bay u leeyihiin waana u madax bannaan yihiin laakiin dhibaato walbaahi muxuu ahaa wax walbaahi dhib ka daran ayaa jira waxaan hadalkii ku soo gabagabeynayaa reer beledweyne waxa ay naga doonayaan gurmad isla reer beledweynena waxaan leeyahay saacadaha ugu soo socda ugu soo dhow waxaad heli doontaan jawaab degdeg ah oo ummadda Soomaaliyeed ee walaalihiina idinkaga timaada ku sabra geedaha aad saaran tihiin ku sabra guryaha aad dul saaran tihiin ku sabra dadka aaweydeen ee walaalihiina ee daadadku qaadeen ku sabra dulqaata oo Allah subhanahu wa ta'ala u dulqaata asaga ayaa musiibadan idinka dulqaadi kara idiina keenay waxaana leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walbaahi oo ay joogto inay kacaan oo ay u kacaan dadka walaalahooda ee ku dhiban magaalada beledweyne assalaamu calaykum billahi wa kafa wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sida fariintii akhyaartiga horeeyay gudbiyeen oo kale waxaan rabaa inaan horta ka tacsiyo dadkii ku dhintay dadkii waxyeeladu ka soo gaartayna aan ilaahdo ilaahay badal khayr qaba haydiis iyo musiibadii ka dhacday beledweyne runtii dadka Soomaaliyeed waa walaalo waxaan rabaa inaan tixgabayo dareenkayga aan ku cabirayo aan la wadaago
bulshada reer Puntland si ay uga qayb qaataan gargaarka iyo gurmadka degdega ah ee la gaarsiinayo walaalaha reer Beledweyne ee dhibaataysan anoo hadalka sii badinayn waxaan tixda ku bilaabay geeraaro la iskama tirshiyo heese iyo guurow haddaan gabaygu hiil ku galayn goobtan oo kale niman yahow hal aan gocanayaan idin guddoonsiina garnaqsada tala nala gudban goortan dabadeed galad iyo haddii uu ladnaan guula kugu deeqo oo geel ku dhalo amaad gowrac ka helayso gasiinkana markaa haysatiyo gowska waxa saarto gabanaduna ku ladan yihiin xaaska gurigaagu ase uu walaalkaaga odoon meel la gabayooxo oo aan gargaar kaaga tegay gacani kaa gaarin oo uu dareenkiisku gubin waa gunnimo weyne waxa taa la geda oo haddeer aan u galo keeni beledweyne gaan wada dhashiyo soo hal gobol ma ahin gacal iyo xigaaliyo inagu soo hal gobol ma ahin gurmad ina ku waajibay isana soo hal garab ma aha guntigoon u xirannaa dhammaan soo hal garab ma aha gaaladu waxay noo tirtaan gaajo bi'inayne gacmahoon iswada haysannaa soo hal garab ma aha goynteen inaan hiilinnaa soo hal garab ma aha duco aan ilaah garabsannaa soo hal garab ma aha mahmaah gu weynayd haddaan hadal ku soo gooyo guntigaa hadduu adag yahoo go'u ku deeqaayo nin kaley gawaan iyo ka tahay baabbaha iyo goofe giraantuna sidaas weeye oo ruuxba waa galabe oo waad Soomaalidu ku mahmaahdaa bawda rag maalin bay mid baa qaawan reer Puntland haddii maanta isugu toosan tahay reer Beledweyne ayay ka kala jaban tahay marka waxaa la rabaa in walaalaheen aan mataqaanaa u gargaarno oo gurmad ka qayb qaadano aad baa meediyahan ugu mahad celinaya oo qayb libax la asaguna ka qaadanaya waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh